السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ka soo gudubnay xarfihii oo fursadan ahaa iyo dhaqaalaha fidology ayaynu ka soo gudubnay halka waxa ka bilaabi doonaa 10 erayo ku bilaamay erayadan waxay noqon doonaan erayo iyo xarfo labaala waxay ka kooban yihiin laba xaraf marka waxaan dhigan doonaa kuwa 3 ka kooban kuwa 4 ka kooban kuwa 5 ka kooban kuwa 6 ka kooban iyo kuwa 7 ka kooban marka qofku 7 xaraf oo ahmaariyo sidoo kale isu raacay marka uu akhriyo waxaan rajeynayaa wax kale oo u dhiman in uu san jirin ma rajeynaya insha Allah taala marka 10keena caawa amaaraya inta la soo iman maayo baalahuleed hoohe qaalatooj af Soomaali waxa noqonaysaa intaasi erayo iyo xarfo labaala intaas hadaan ka soo gudbo erayga koobaad leeba tuug lambar 2 malab waa malabka baa la yiraahdaa lambar 3 lam waa sac lambar 4 leela kale lambar 4 waa leela kale amisku tur lambar 5 higi waa sharci lambar 6 mari waa maadi afraad iyo raadi saddexaad mari hogaamiye lambar 7 saar caws ama daaq lambar 8 shaqo erayga markaan joogno yar kor istaagaya waxa jira caalamku marka joogto qofku siraa iyo saraash marka lagu yiraahdo ama shaqo ma ka shaqeystaa inta lagu yiraahdo ama ninka siraa iyo saraaro siraa le shaqa jirtu laakiin Soomaalida shaqadu waa shaqo noocmee la goranaya ma kabaato ma maxay baad ilaalisa dhakhtar ma taa shaqada Soomaalidu way kala qaado darajo moodayna shaqada laga helo shaqada muhiimada loo shaqeysanayo waxa weeyaan Soomaaliyeey waa inaad muhiimada dhaqaalaha ka samayso laakiin idinku waan garan waayay ilaahay dadka noo hagaajiyo dadka haduu hagaago dalka hagaagay in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahayna qofna ma bedelo ilaa isagu nafsadiisa bedelo marka ilaahay dadka inoo bedelo dad wanaagsan ka dhigo ka bacdi iyaga dalka bedelay insha Allah taala okay lambar 9 rasa ilaaway lambar 10 ragga waa degan lambar 11 ruus waa bariis Soomaalidu baalka aad buu taageertaa ruus waa bariis okay lambar 12 bal akhriyo idinku waa ree iyo resa waa meek juthmaan af carabi lagu yiraahdaa okay misaale intaan tusaale yar kooban ka bixiyay maadaama 10 koobaad qofku markuu xarfiye ka soo gudbay erayadii ay yihiin 10 koobaad qaadanayo wuxuu noqonayaa okay misaale waa tusaale lambar 1 leebinat turu aydallam tuuganimadu ma fiicna leeba ma soo dhiganay leebinat tuuganimadu tiru aydallam ma fiicna tiru waa fiican aydallamna waa eray raacayo oo naxwa leebinat turu aydallam tuuganimadu ma fiicna lambar 2 yaynee maar iwadishaalo malabkaygii waan ku jeclahay hablaha loo isticmaalaa kan yeene mar quruxdaydii ama malabkayga noqonaysa hani af Soomaali wata hani bay dadku yiraahdaan maxaa kuwani aqdaanku day Soomaalidu maxay tiraahdaa macaantu okay yeene mari wadishaale macaantu waan ku jeclay weeyaan marka insha Allah taala waxaad u adeegsan doontaa islaamihiina yeene mar wadishaalo macaantu waan ku jeclay bay noqonaysaa sira iyo sarraano shaqo ka shaqeynaya sira iyo sarraano shaqo hayaabay ka dhiganta lambar 4 leela nagar yeelam war kala ma jiro leela nagar yeelam wax kale oo ku sheegaana ma jiro nagar waa hadalka marka yeelamna waa ma jiro leela nagar yeelam wax kale oo ku sheega ma jiro war kala ma jiro sheeka dhacay dabeetana qofka ku yiri isay u dhacay waxaan leela nagar yeelam baad leedahay waraxani waa dhamaaday okay lambar 5 higi damo mirtano sharciga laftigiisu aad buu wanaagsan yahay هيك الدمو مرتنا وحبات دبتنا اللي يقولوا سوق بسدان شرعي أن كوكلا بحنا
هيك دم مرت رماتر شرعي لفتي يساوي مهمة إن شاء الله تعالى بدين ما وانسوكو بيا هل كان واحد نكون قادنا 10 ككومن لبا حرف ككومي مركا 12 كدين مايو